halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan. waa subax khamiisa bisha August 13 sanadku waa 2020 goor sheegtu waa 7 subaxnimo oo gowa. wararka aanu subaxan saaka idin haynana waxa ugu mudan ما ولا نقومت شراء دلائي بقى وشيء من دون أنك هذا أنت أنا كنت لتشرنا وسيلة عبد الرحمن دي أنا هقولك حاجة لك سؤال دائما waa guddiga farsamada habsami u socodkiiyo ka baaraandegidda arrimaha doorashooyinka ka hor shirka dhuusamareeb oo ka hadlaya halka ay wax u marayaan iyo filashada qabsoomidda shirkaas iyadoo aysan kulamadooda qayb ka ahayn xubnihii matali lahaa Puntland iyo Jubaland. Biden iyo ku-xigeenkiisa cusub Kamala Harris oo markii ugu horeysay warbaahinta ka soo wada muuqday tan iyo xulashadeedii. maxkamadda Islaamiga oo Nigeria ku taalna waxay dil ku xukuntay in lagu eedeeyay inuu kufsi geystay iyo waliba halkee wax marayaan dhismaha garoonka kubadda cagta ee ay yeelanayso magaalada Gaalkacyo. heerarka jiddisan buu soo maray dhismaha garoonka waxaa jirtay waqti anagu aan gacanteeda ku dhisanay oo iska xoqofsa ahayd oo darbiyada garoonka qaybo ka mid ah aan si qurux badan u dhisanay. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad iyagoo faahfaahsan barnaamijka kaga bogan doontaan. ciyaarihiiba ka mid ah waa barnaamijku soo saaray Cabdilqaadir Yuusuf Cali waxaan ahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ee akhyaari subax wanaagsan. qodobadaas oo fidsan dhageystayaal way noo soo socdaan balse marka hore aynu ku horeyno wararkii caalamka oo Axmed Badar uu saaka diyaar inoo leeyahay. Axmed mahsanid Cabdiraxmaan Dhimbiil. Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa markii ugu horeysay iyaga oo wada socda fagaara ka soo muuqday tan iyo intii uu soo xushay in ay ku xigeen u noqoto doorashada soo socota ee lagu wado in Mareykanka ay ka dhacdo bisha November. Mr. Biden ayaa waxa uu sheegay inuusan shaki uga jirin inuu soo xushay qofkii saxda ahaa ee ku caawin lahaa sidii dalka dib loogu dhisi lahaa. Miss Harris ayaa waxay sheegtay in dadka Mareykanka ama dalka Mareykanka uu oynaya imika hoggaan wanaagsan. Mr. Biden ayaa waxa uu wajihi doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga doorashada soo socota bisha November. dalka Hindiya ayaa dhanka dhimashada fayraska corona ka sara maray Britain isla markaana soo galay kaalinta afraad. in ka badan 46,000 oo dhimasho oo sababay fayraska corona ayaa imika laga diiwaan galay dalka Hindiya. Mareykanka, Brazil iyo Mexico ayaa wali dalalka sida baan ugu dhuftay fayraska corona isla markaana dad badan u haleelay. warbixin ay soo saartay waaxda beeraha ee Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 60% dadka ku nool dalka Kuuriyada Waqooyi ay wajahayaan cunno la'aan. qiimeyntan ayaa 2% sare u kacday marka loo barbardhigo sanadii aan soo dhaafnay. waxyaabaha xaaladda sii murjiyay ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay fayraska corona oo guud ahaan caalamka farabaan ku haya. waxay arrintani micnaheedu tahay in 700,000 oo dadka koonfurta waqooyi dadka Kuuriyada Waqooyi ay wajahayaan gabaabsi dhanka cunnada. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ku habsatay abaar daba dheeraatay taasi oo sababtay in dad badan ay cunno u baahdaan. hay-ad laga leeyahay dalka UK ayaa waxay sheegtay inay jiraan cadeymo muujinaya in dagaalada lagu waxyeelayo dadka rayidka ay hoos u dhaceen intii uu caalamka ka jiray fayraska corona. hay-adda lagu magacaabo Action on Arms Violence ayaa waxa ay soo ururisay macluumaadkan oo ay qoreen warbaahinta taasi oo ku aadan dhacdooyinka lagu dilay ama lagu dhaawacay dad rayid ah bilihii u dhaxeeyay Abriil iyo bisha July. hay-adda ayaa baritaankeeda ku ogaatay in 58% ay hoos u dhaceen waxyeelada ay dagaalada geystaan. waxyaabaha ay hay-adda eegtay ama dalalka ay eegtay oo isla markaana sheegtay inay hoos u dhaceen dagaaladooda ayaa waxaa ka mid ah Suuriya, Afghanistan, Yemen, Soomaaliya iyo Pakistan. warkii dunidana waa naga intaan dib idin ku celiya Cabdiraxmaan Dhimbiil. aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Axmed Badar oo inala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC-da.
aynu ku bilownay sidaad wararkaba ku maqlayseen Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa xalay sameeyay wadajirkoodii ugu horeeyay ee ay uga soo hor muuqdaan warbaahinta tan iyo markii uu ku xigeenkiisa xisbiga dimuqraadiga u xushay si ay u wada loolamaan doorashada madaxtinimada ee la filayo inay ka dhacdo dalkaas bisha November oo ay ka hortagayaan madaxweyne Trump iyo ku xigeenkiisa Mike Pence. haddaba xogtii u dambeysay ee kulankoodaas ka soo baxday waxaa hadda stuudiyaha igula sugan oo inahaya Cabdulqaadir Yuusuf Cali. cabdiraxmaan Mr Biden ayaa waxa uu sheegay in uusan shaki uga jirin in uu soo xushay qofkii saxda ahaa ee ka caawin lahaa sidii dalka dib loogu dhisi lahaa. Miss Harris ayaa dhankeeda sheegtay waxayna tiri America waxay u ooyeysaa hogaamin u horseeda wadada saxda ah. waxay farta ku fiiqday in dhaqaale xumida iyo dhibaatada caafimaadka dadweynaha ay tahay mid ka dhalatay qaabka xun ee uu madaxweyne Trump u maareeyay la tacaalida fayraska corona. He inherited the longest economic expansion in history from Barack Obama and Joe Biden. Trump waxa uu madaxdiisa ka horeysay Barack Obama iyo Joe Biden ka dhaxlay dhaqaale cirka isku sii shareeraya balse hadda wax kasta oo uu dhaxlay waa uu ku tuntay. guuldarooyinka hogaamineed ee Trump ayaa waxay horseedeen inay dhaqaalaha dalkeenu hoos u dhac weyn u galo taasoo horseeday in shaqo la'aanta dalkeenu ay saddex jibaaranto. Out of all the major industrialized nations with an unemployment rate that has tripled. cabdiraxmaan Miss Harris ayaa sidoo kale sheegtay in muddo 83 maalmood gudahood ah ay dadka Mareykanka fursad u haystaan in ay doortaan mustaqbal wanaagsan. Mr Biden ayaa wajihi doona Miss Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga doorashada bisha November sanadkan. dhanka kale cabdiraxmaan madaxweyne Trump oo ka hadlay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa dhaleeceeyay Senator Harris waxa uu sheegay in ay isku dayeedii madaxweynaha ee hoos u dhacday. I watched your poll numbers go boom, boom, boom down to almost nothing. waxaan daawaday tirada codbixinta oo hoos u dhacaysa hoos u sii dhacaysa ilaa ay gaadhay waxba waxa ayna ka baxday iyadoo cadha awgeed waalan. isla sidoo kalena ma uu jirin qof uga cay badnaa Biden sida ay iyadu u cayday. waxay ku sheegtay wax kastoo xun inuu ahaa. isla haddana waqti yar kadib si degdeg ah waxa ay u ordaysaa inay noqoto madaxweyne ku xigeen iyada oo sheegaysa sida uu u wanaagsan yahay. And now all of a sudden she's running to be vice president, saying how wonderful he is. cabdiraxmaan isu soo baxyadan oo lagu qabtay Wilmington ee Delaware ayaa ahaa kuwa aan bulshada u furnayn isla markaana Mr Biden oo 77 sano jir ah ayaa ilaalinaya xeerka kala fogaanshaha ee corona. labada musharax waxay soo koreen goobta hadalka laga jeediyo iyaga oo xiran qalabka sanka lagu xirto waxayna hadal u jeediyeen koox wariyaal ah oo iyagana ilaalinayay kala fogaanshaha bulshada. cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir oo inoo soo koobaya xogta ku saabsan kulan ay xalay qabteen Joe Biden iyo Kamala Harris oo u tartami doona madaxweyne iyo ku-xigeen iyagoo metelaya xisbiga dimuqraadiga halka ay ka hortagi doonaan Trump iyo Pence oo yana xisbiga jamhuuriga meteli doona doorashada November ee lagu jaangoyn doono cidda madaxweyne u noqon doonta Mareykanka 4 sano ee soo aadan. haatan guddiga farsamada habsami u socodka ka baaraan degida arrimaha doorashooyinka ka hor shirka dhuusamareeb 3 ayaa la kulmay madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyadoo aanay qayb ka ahayn xubnihii matali lahaa maamul goboleedada Puntland iyo Jubbaland. shirkaas oo daba socda shirkii hore uga dhacay dhuusamareeb oo ay ku kulmeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedadu kaas oo lagu soo saaray in dib loo kulmo 15 bishan oo ay imika inaga xigto 2 casho kaliya. falanqeeyaal siyaasadeed ayaa aaminsan in qabsoomidda shirkaas ay aad u adag tahay iyagoo ku sababeynaya waayaha siyaasadeed ee dalku ku jiro oo ay ugu horeeyaan in weli madaxweynuhu uusan magacaabin ra'iisul wasaarihii bedeli lahaa ra'iisul wasaaraha ku meel gaadhka hadda xilka haya oo ay u arkaan in arrintan uu si weyn u saameynayo. shirkan ayaa si weyn indhaha loogu hayaa iyadoo loo arko kulan jaangoyn doona halka ay u jihaysan doonto xaaladda siyaasadeed ee cakran ee ka taagan Soomaaliya. siyaha wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo shir gudoominaya kulamada ay guddidaasi yeesheen ayaa baliiga warramay halka ay wax marinayaan.
cabdiraxmaan de annagu guddidii aad ogeydeen madaxda qaranku heer federaal iyo heer maamul goboleedyo ay isku soo afgarteen kulankii labaad ee dhuusamareeb ayaanu ka soo unkannay. guddidaas waad ogeydeen oo dhowaan waatii golaha wasiiradana la marsiiyey ra-iisul wasaaraha kusamaahiina uu soo saaray. muddo hadda 4-5 cishaa waxaanu joognay magaalada muqdisho. halkaas ayaanu shirar hordhaca oo aanu kaga sii baarandegayna hawsha ka baarandegidda iyo tala ka bixinta arrimaha doorashooyinka aan u fadhinay. qorshayaal hordhaca ayaanu sii samaysanay saanu hawsha u gulayno insha allahu tacaala. inta aanan safrin horta waxaanu la sii kulannay madaxweynaha koonfur galbeed, madaxweynaha galmudug, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan. waxaanu la kulmi doonaa haddii rabbi nagu simo asxaabta iyo xisbiyada iyo ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahanada. markaa kabacdina waxaa noo qorshaysan inaanu u kicitinno xagga iyo beledka dhuusamareeb oo shirkii dhuusamareeb 3 uu ka furmi doono. halkaas ayaa hawsha noo maraysaa. waxaad sheegtay inaad qorshayaal iyo mabaadii dejisateen, bal qorshayaashaasi maxay yihiin si dadku u fahmaan? wallahi de sidii aragtiyaha kala duwan ee jira la isugu ablaablayn lahaa, la isugu keeni lahaa doodaha sharciyadeed iyo dastuuriga jira iyo kuwa siyaasadeed ee wadar ogolka sidii madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii kaleba ay ka sheegeen shirkii dhuusamareeb, sidii la isugu keeni lahaa loona heli lahaa xanaan doorasho oo la wada ogol yahay. inahaas ayay daaran tahay shaqada iyadu. arrimahaasana qorshayaal hordhaca ka sii samaysanay. wixii kalena waxaanu aad ugu sii kurgeli doonaa marka aanu tagno magaalada dhuusamareeb. waxa wararku nagu soo gaadhayaan inaan Jubbaland iyo Puntland kulamadiina qayb ka ahayn ciddii ay u soo magacowdeen ama ciddii ku matali lahayd. marka haddii la idinka kala maqan yahay waxa wadaan Soobiyo Codaansheyn ma waa run. waa naga maqan yihiin Jubbaland iyo labadii xubnood ee Jubbaland iyo Puntland. waxaanu soo ku rajan weynahay bal inay xagga noogu iman doonaan. biyo codashana ma aha, waa daraal aanu sii bilownay. iyana fahamkooda iyo fikirkooda iyo odhaahdooda markay noo yimaadaan bay nagu dari doonaan. waxaanuna isla sii afgaranay inaanu waxyaabahaanu hadda isla meel dhignaa ay ahaadaan qorshayaal go'aan ka qaadashadooda iyo ku hawlgelidoodana marka la isu soo dhammaado aanu halka ay dhuusamareeb kaga wada shaqayn doono. shirka waxaa laga filayaa in dhinacyadii kala aragtida duwanaa, hadday maamulada tahay, hadday dowladda federaalka tahay, hadday ciidaha ay saameynaysay oo dhan ay tahay, ay ka soo baxdo wax heshiis lagu wada yahay. haddiiba iminka sida aad sheegtay laba maamul maqan yihiin, sawtaasi walaacintiisa leeg ma ah oo ma adkaanaysa in la filo in wax la isku raacsan yahay ka soo baxo wixiina laba cashaaba hadha iminka? wallahi arrimahan siyaasaddu arrimo hawl yar ma aha. waxaanu soo ku rajo weynahay marka la isu yimaado inay mas'uuliyiintoo dham iman doonaan. arrimaha farsamana halkaa lagu turxan bixin doono. wixii siyaasadeeda jirtana halkaa lagu xalin doono. hadda waa khamiis, waxay naga xigtaa 15kii bisha berri oo jimca iyo sabtida ay bishu tahay 15. marka waxaad leedahay shirkii baaqan maayo oo maalinta sabtida dhuusamareeb baa la isugu imanayaa oo shirkii loogu magac daray dhuusamareeb 3 uu ka dhacayaa. ku talagalku waa sidaa. saasaanu anagu farsamo ahaan ku tala jirnaa bisha 15keeda inuu shirku ka furmo magaalada dhuusamareeb. iminka muqdisho aad joogtaan, kulamadan iyo howlahan aad sheegaysay aad dadka la kulmaysaan, qaar la kulmi doontaan. dadka qaar baa warkaba in howlo bilow ay ula muuqdaanba. shirkuna halkuu ka dhacay dhuusamareeb bay ahayd. goorma muqdisho ka baxaysaan oo dhuusamareeb aadaysaan? annagu ayaamahan soo socda waa baxaynaa bisha 15keeda dhuusamareeb baan joognaa insha allahu tacaala. laakiin ayaama ma hadhin, laba casha hadhay maalintii shirku qabsoomayay iyo berri iyo maanta. marka labadan maalmood goorma baxaysaan? waxaanu ku tala jirnaa inaanu bisha 15keeda joogno magaalada dhuusamareeb. marka shacabka Soomaaliyeed ee haystay ballanqaadka in 15ka bisha aad kulmi doontaan oo shirka dhuusamareeb ka dhici doona, waxaad u ballanqaadaysaa in shirkaas uusan baaqan doonin oo sabtida dhuusamareeb la wada fadhiyo. ku talagalkaygu waa sidaa. laakiin ku talagalkiina halka shaki baa ka muuqda. ma walaac baa jira guud aad isleedihiin hawluhu waa isbedeli karaan? walaac naguma jira ilaahay baa og wixii iman doona. annaga hadda inta aan ku tala jirnaa waa sidaa cabdiraxmaan, si aan hawlo kale xagga la ka socda iman. kaasi waxa uu haasi hayaha wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo maalmahan bishir gudoominayay kulamada ay yeelanayeen guddida farsamada habsami socodka ee ka baaraandegida arrimaha doorashooyinka ka hor shirka dhuusamareeb 3 oo la filayo inuu 15ka bishan oo maalinta sabtida ka qabsoomo magaalada dhuusamareeb. bal haddii aynu eegno qodobka waxa ay ka yiraahdeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena. Bashiir Quduf Daahir oo jooga Caabud oo qaxawle ee guddiga farsamo ee ka baaraandegaya arrimaha doorashooyinka ee ka hadlay halka uu xumarayaan iyadoo ay
aysan qayb ka ahayn Puntland iyo Jubbaland waxba soo kordhin mayso waayo looma dhama buuri go'aanna ma gaari karaan iyagoo kala qaybsan kaasi wuxuu kamid ahaa qaar kamid ah dhageystayaasheena aragtidooda noo soo mariyay bartaanu ku leenahay Facebook wali dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa BBC qaybaheeda kala duwan online-ka iyo barta Facebook oo toosa iyo qaybaha idaacadaha BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haatana maxkamad islaami oo ku taala magaalada Kano ee dalka Nigeria ayaa dil ku xukuntay nin daa oo lagu soo eedeeyay inuu kufsaday gabadh jirta 12 sano toddobaadadii la soo dhaafay waxaa dalka Nigeria dibadbaxyo ka dhigayay dadka u ololeeya xuquuqda dumarka kuwaasi oo ka soo horjeeda kiisaska kufsiga oo sare ugu sii kacaya dalkaasi wariyaha BBC Sheikh Khalid ayaa warkaasi ka soo diray magaalada Abuja waxaase soo jeedinaya Cabdulqaadir Yuusuf Cali afayeen u hadlay waaxda cadaaladda ee gobolka Kano ayaa BBC-da u sheegay in maxkamadda sare ee shareecada islaamka ay ninkan oo 61 sano jir ah ku heshay dambiga ah in uu gabadh 12 sano jir ah ku kufsaday geed hoosti iyadoo ku sugnayd banaanka tuulada Farsa sanadkii la soo dhaafay 2019 ninkan oo xaasle ah ayaa waxay maxkamadda ku xukuntay in dhagax lagu dilo oo ah sida shareecada islaamka qabto hase yeeshee waxa uu xaq u leeyahay in muddo 30 maalmood gudahood ah uu racfaan kaga qaato xukunkaasi waa xukunkii labaad oo dil ah oo ay maxkamadaha islaamiga ah ee gobolka Kano ridaan muddo 7 gudihii ah oo isniintii la soo dhaafay maxkamad islaami ah ayaa nin fanaan ah ku xukuntay daldalaad kadib markii lagu helay dambi ah inuu aflagaadeeyay Nabi Maxamed nabadgeliyo iyo naxariis korkiisa ahaatee maxkamadda ayaa go'aamisay in Yaxya Maxamed Shariif uu diinta aflagaadeeyay xilli uu qaadayay hees si weyn loogu baahiyay barta WhatsApp bishii Maarso gobolka Kano waxa uu ka mid yahay dhowr iyo 10 gobol ee waqooyiga Nigeria ee 20 sanadood ee la soo dhaafay ku dhaqmayay habka shareecada islaamka iyo shuruucda kale ee dalkaasi u degsan tiro dad ah ayaa horay xukun dil ah loogu riday Kano balse waxa la aaminsan yahay in hal qof oo kaliya lagu fuliyay dilkii lagu xukumay taas waxaad warbixinta Abuja ka soo diray Sheikh Khalid oo la socodsiinayay Cabdulqaadir Yuusuf Cali bal haatan haddii aynu ku sii socono dhanka iyo qodobada kale ee aanu saakaydan ku hayno idaacadeena subaxnimo aalad baa ka dambaysa midba midka kale ayaa laga jecel yahay kulka la jooga baraha bulshada ku xidhiidho dhalinyaradu waxay imika si weyn ay u daneeyaan siibada aad u dhaxaysa 25 ilaa 15 barta lagu magacaabo TikTok oo dad aad u fara badani ay ku xidhan yihiin waxayna halka ku soo bandhigaan waxyaabo khuseeyo noloshooda iyo ay markaasi xiiseynayaan balse waxa wax ka duwan halka ka wada Sharmaarka Cabdi oo dadka masaakiinta iyo kuwa xanuunsan ku soo bandhiga bartiisa iyo halka ay dadkii u gurmanaya ay uga gurmadaan hadaba Sharmaarke ayaa BBC-du weydiisay bal waxa uu ku dhaliyay fikradaas iyo halka hawlaha uu wada ay marayaan Sharmaarka Cabdi Jaamac waxa uu u waramay Samiira Cabdullaahi Jaamac oo BBC-da ka tirsan runtii waad aragtay ama waad taqaanaa social media waxa loo isticmaalaa hadaynu dhalinyaranahay inaynu sawir soo gelino ama video anagoo ciyaarayna ama slow motion samaynayna ama deeno maartay nolosheeni dadka tusayna ayaanu soo gelinaa sababta igu dhalisay in aan ka duwanaysiyo waxa weeye social media hal wax kaliya looma isticmaali kare siyaabo badan baa loo isticmaali karaa markaan arkay baahiyaha ka taagan wadankii iyo gaajada ka taagan oo dadkii lacagta haystay ama hantida lahaana ay maartay ka aamusan yihiin oo waxaas oo dhan ay ka warhayn ayaan waxaan go'aansaday inaan dadkii u soo gudbiyo inay jiraan dad badan oo masaakiin ah oo u baahan in la caawiyo waayahay marka dadkan masaakiinta ee caawimaadda u baahan sideebaad adigu ku ogaataa halka ay joogaan ma iyaga ku soo raadsada mise adiga raadiya horta sidiisaba qofka baahan qofka uu arko kaliya raadiyaa laakiin qof uusan aqoon u lahayn ma raadiyo way jiraan dad annagana soo raadiya oo markaas ay nagu arkeen inaan dad caawinayno ahaan bay noo soo raadiyaan laakiin badankoodu dadka annaga raadsana waxaan raadsanaa waxa weeye waa maamooyinka hooyooyinka aadka u liita agoomada iyo weliba agoon iyo rajo dad iskugu dhex jira annagaana raadsana kuwaas marka waxqabadka ay timaado dadkaas aad u tagtood muuqaaladooda soo bandhigto sidee bay bulshada uga falceliyaan horta anagu marka u tagayno shakhsi ahaanteena dhalinyarada nahay ama ururkaas annaga baa maaragtay ii sheeg caawina oo badanko 95% annaga jeebkeena ama mushaharkeena baan ka caawina markaas qofkii u baahan wax annaga naga tan weyn oo annaga naga baawar weyn oo aan anagu xamili karin maadaama aan dhalinyaro nahay ayaan waxaan sameeynaa dadkaynu u soo gudbinaa waynu ka duubnaa markaan ka duubno qofka cabashadiisa asaga maartay sheegta oo videogii socdo cabashadiisa ka sheegta lambarkiisa aan ku qornaa
hadduusan lambar lahayn lambar baynu u furnaa halkaasaa loogu diraa oo waxaynu ka cararnaa in annagana soo gaadho laakiin ma jirto cid maaragtay muddo intee la ega ayaad hawshan ku dhex jirtaa Sharmaarke muddo waxaan ku jiraa ku dhawaad 3 sano ah laakiin waxa aan soo bandhigay sanadkan ayaan jeclaystay inaan dadka u soo bandhigo si markaas ay dad badan ay caawimo badan u helaan bartaada TikTok dad badan baa ku follow gareeya ama ku soo raacay oo xaaladaha iyo waxyaabaha aad soo gelisay la socda siday u badan yihiin ma u caawiyaan dadka mise dad tiro yar ayaa dadka caawiya wallahi waa ogtahay Soomaalidu sideedaba wixii way daawadaan wayna ka naxay laakiin wax ma wada haystaan maanta inta aniga ay follow gareysay waxa maaragtay ka yar inta wax haysataa markaas dadkaas haddaan fiidiyowga soo geliyo cidii markaas ayaga ilaahay ka keeno oo caawimaad fidiyay way fidiyaan laakiin dadka badankoodu wax ma bixiyaan oo dad aad u yar 5% ama 3% dadkaas aan ku xirnaayo wax soo dira ugu dambeyntii ma jiraan dhalinyaro kuugu dayday oo barnaamijkan aad sameynayso ayagana qayb ka geystaa ama kula sameeya ama ka barbar sameeya wallahi horta way jiraan waayo waa maanta inta kaliya aan ku faraxsanahay waxa weeye dhalinyaradii shalay ciyaaraha ku jiray ama waqtigooda ku dhimin jiray waxyaalo ayaga aan faa'iido u ahayn waxyaalo aan maaragtay ishag noloshooda aysan waxba faa'iido ka helaynin ayaa maanta waxa ku faraxsanahay in ay wadadii anagu aan haynay ay soo qaadaan teeda kale barnaamijkan Hiil Walaal ma ahan qof kaliya ama qof miskiin in wax la siiyo waxa weeye in maskaxda dhalinyarada iyo maaragtay ixtiraamka waalidka aynu kaga hadalnaa magaalo kasta aynu tagnana barnaamijyada ku qabanaa dhiirigelin dhalinyaradu in ay waalidkana ixtiraamaan noloshoodana ay badankoodu ay siiyaan inay dadka caawiyaan haddii aysan maal haysan ay muruqooda ama maaragtay wixii kale dadka ay social media ay kaga caawin karaan inay kaga caawiyaan maanta waxaan ku faraxsanahay qof kasto dhalinyaro badankoodu inay nagaga midaysan yihiin barnaamijka Hiil Walaal ay magaalo kastana ka bilaabeen kaasi waxa uu ahaa Sharmaarke Cabdisamad Jaamac oo barta lagu wada xiriiray TikTok oo dhalinyarada badankoodu badan amaadayso u isticmaashay isagoo u jooga inuu dadka uga gargaaro kana wada barnaamij lagu magacaabo Hiil Walaal saacada Afrikada bari hadda waxay sheegaysaa 7:22 waxay la adahay kaliya 10 second waxaad dhageysanaysaan BBC haatana 47 milyan oo haween oo adduunka oo dhan ayaa la saadaalinayaa inay awoodi waayeen inay isticmaalaan waxyaabaha loogu talagalay ka hortagga uurka ee casriga haddii xanibaadaha hadda jira ee loogu talagalay fayraska corona ay sii socdaan muddo 6 bilood taasoo dhalisay carqalad aad u weyn sida laga soo xigtay waaxda qaramada midoobay ee u qaabilsan maalgelinta bulshada ee lagu magacaabo UNBFA laakiin wada kale oo cusub oo lagu hubinayo si waditaanka helitaanka waxyaalaha lagaga hortago taranta ayaa loo hirgeliyay dadka ku nool gudaha iyo hareeraha Kampala iyadoo la adeegsanayo wadayaasha mootada oo halkaasi looga yaqaan boda waxaana soo jeedinaysa warbixin ku saabsan oo BBC arrintaasi ka diyaarisay Kawsar Maxamed Cabdullaahi Peter Mugisha waa darawal kaxeeya mootada loo yaqaano boda waxa uu haatan helay codsigii saddexaad ee maanta oo ah dalabka daawada waxa uu ka shaqeeyaa gudaha iyo dibadda caasimadda Kampala waxa uu daawo u qaadaa dadka ku nool banaanka magaalada dalabkan waxa uu ka yimid Wanjiru Brenda oo isticmaalaysa aaladda mootada aaminka ah si ay uga dalbato daawadeeda so it has been really difficult for dhabahantii aad bay haweenka ugu adag tahay inay ka soo tagaan goobahooda oo ay daawo soo raadsadaan xilliga ay soo gaaraan waxay imaanayaan xarumihii caafimaadka oo la xiray xayiraadaha lagu soo rogay COVID-19 aawadood dalka Uganda waxaa la xadiday helidda daawada joojisa uurka qalabka uurka lagu baaro iyo qalabka lagu baaro cudurka HIV iyo waxyaabaha jeermiska dila balse aabkan ama aaladan waxay haweenka u fududeynaysaa inay helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin oo albaabkooda loogu geynayo marka uu soo gaadho codsiga qofka macmiilka magaciisa iyo telefoon numberkiisu iyo dawada uu doonayaa nooca ay tahay ayaan dhaqaaqaa oo waxaan tagaa farmasi dabeetana waxaan tusaa qofka farmasiga haya dalabka dawada uu qofku doonayo kadib ayaa qofka farmasiga ka shaqaynaya dawadii ii dhiibaa dabeetana waan dhaqaaqaa oo waxaan u geeyaa qofkii soo dalbado aan halkiisa ugu geeyo ganacsiga noocanihi waxa uu kordhiyay dakhligiina soo geli jiray oo lacagtii aanu rakaabka ka heli jirnay waxa noo dheer lacagtan kale aanu
ka helno dalabaadka iyo adeega aanu bixinayno. isticmaalka mootooyinka waa mid ka mid ah hababka ay qaramada midoobay qaybteeda maalgelinta bulshada ay ku gaarsiiyaan agabka caafimaadka ee dadka nugul. waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 20% in haweenka ku nool Uganda ay heli kari waayeen daawooyinka ka hortaga uurka, balse in online laga iibsado ayaa si weyn u korortay. waxaanu ku noolnahay duni ay dadku aad ku eegayaan sida adigoo ka duwan dadka kale, gaar ahaan sida markaad iibsanayso cinjirka la xirto. marka sidaa darteed arrintaasi qofka waxay ku abuuraysaa inuu xishoodo uuna isku arko inuu dadka kale ka duwan yahay. marka mashruucani aad ayuu u wanaagsan yahay. haatanna waxay ahayd taasi warbixintii Kawsar Maxamed Cabdilaahi. bal garoonka Xawaale ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa dhismihiisa lagu qarash gareeyay lacag aad u badan, taasoo ay ku deeqeen dhinacyo kala duwan oo ka mid ah qurba joogta deegaanku. dhismaha garoonka weli socda ayaa halka ay xumarayaan. waxaanu ka wareysanay Axmed Maxamed Caanageel oo ka mid ah guddida dhismaha oo u waramay Fartuun Ismaaciil. garoonka kubadda cagta ee Xawaale Stadium ee magaalada Gaalkacyo waa garoon ay ku ciyaaraan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay kaga joogaan dalka. waxaa la soo bilaabay ololaha dhismihiisa 2017 November 29keedii, waqtigaas oo dhalinyarada qaybo kala duwan ay isku yimaadeen oo ay shireen. wixii waqtiga ka dambeeyay waxaan guda galnay inaan aruurino dhaqaalihii garoonka lagu dhisi lahaa iyo naqshadii iyo qaabkii loo dhisi lahaa. shirar kala gedisan ayaa la qabtay oo la isugu yimid oo qaybaha bulshada lagu casuumay oo looga tashanaya sida garoonka loo horumarin lahaa. run ahaantii Fartuunay dhaqaalaha aruurinta iyo muddo fara badan ayay soo jiitamaysay ilaa ugu dambeyntii 116,000 oo dhaqaale ah oo meelo kala duwan ka soo galay. ilaha dhaqaale ee aad u ururiseen inaad ku dhistaan ee garoonka ma ila dawladda idinka soo gasho dhanka maamulka ama dawladda federaalka mise jaaliyadaha xagee idinkaga yimaadeen? run ahaantii way kala duwanaayeen. bilowgii waxaan ku bilownay inay bulshada lacagta ay naga soo gashay oo qaybaha bulshada jaaliyadaha oo dalka dibadiisa jooga iyo gudaha wadanka waan ka aruurinay xaafadaha idaacadaha oo dadka ay lacag ku soo dirayeen iyo waxaan ka aruurinay maaragtay shirkadaha ganacsiga ee dalka ku yaala. qaybtii labaad ay dawladdu ka qayb qaadatay dawladda federaalka ee Soomaaliya, iyadana waxaa naga soo galay lacag dhan 220,000 oo doolarka Mareykanka oo xilligaas noogu dooqay ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. isku darka qiimaha lacagta loogu talagalay in lagu dhiso ee garoonka idinka aad qabateen ka gudi ahaan maxaad nooga sheegi kartaa intee in la egay ahayd? heerar kala gedisan buu soo maray dhismaha garoonka. waxaa jirtay waqti anagu aan gacanteeda ku dhisanay oo iska xoqofsa ahayd oo darbiyada garoonka qaybo ka mid ah aan si qurux badan u dhisanay. laakiin markii lacagtan aan helnay 220,000 ah ee nooga timid dawladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana gashay hami ah inaan wixii ballaarsano oo aan u yeerano shirkadaha dhismaha u yeerano injineero iyo taliyayaal maaragtay qayb ka mid ah dalka dibadiisa aan ku keenay sida Kenya oo kale. dawladna ay qiimeeyeen qorshaha garoonka. waxaana waqtigaas kambanigii iyagu dhismaha garoonka ku guuleystay ee Kibaarko oo kambani wadani ah ay noo sheegeen in lacag dhan ilaa 340,000 oo lacag ah in maaragtay dhismaha garoonka ay gelayso. dhismaha 4 tarbuun oo waaweyn iyo qayb dhexe oo dressing room ah oo korna ku leh VIP tarbuun ah oo lagu talagalay dadka madaxda iyo maaragtay si garoonku qurux u noqdo. dressing roomkana uu yahay mid maaragtay tarbuunku ka koreeyo underground ah. marka qiimahaas oo dhan lacagtaas ayay maaragtay shirkadu ay mataqaanaa tiri. balse waxaan naawilaynay dawladda Puntland oo iyaduna Fartuunay hadda qaybo ka mid ah lacagtii soo deysay oo 95,000 oo doolarka Mareykanka guddiga ku soo wareejisay. ugu dambeynna u ballan qaaday 186,000 oo lacag ah inay garoonka ugu dooqayso oo dhamaystirka garoonka lacagtaasna loogu talagalay. marka lacagaha dawladda iyo bulshada qaabkaas ay noo soo gelayeen. bal haatanna haddii aynu eegno dhanka iyo ciyaarihii waxaa xalay wada ciyaaray koobka Champions League kooxaha Paris Saint-Germain iyo kooxda Atlanta, waxaana 2-1 ku badisay kooxda PSG oo soo rogaal celisay si la yaab leh iyadoo lagaga horeeyay 1 gool halka ay labadeeda goolba dhalisay xilligii saacadu ku taagneed 90 ama ciyaartu dhamaadahay. intaas baynu ku soo afmeerayna idaacadeena subaxnimo. waxaan ahaa Cabdiraxmaan Cali Dhimbiilo idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno maalintu ha idin samaato.